Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed kulankii uu la qaatay dhalinyaradii ka kala timid gobolada iyo deegaanada dalka ayaa waxa uu ahaa mid ku saabsan arrimaha waqti xaadirka ee dalka iyadoo dhalinyaradii deegaanada dalka ka kala yimid ee kulanka ka qayb qaatay ay su'aalo kala duwan weydiiyeen Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ሰሞኑን የአየር ኃይል የመከላከያ የመረጃና ደህንነት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ሌሎች ፕሮጀክቶች ስንጎበኝ toddobaadkan markaan soo aragnay ciidanka cirka ciidanka militariga sirdoonka artificial intelligence-ga federal police-ka iyo waliba mashaariicaha kala duwan waxyaabihii ay noo sheegeen markaan eegnay waan ku faraxnay dhalinyaro Ethiopian ahaan waxaan dareenay rajo aad weyn የወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራን ጨምሮ አጠቃላይ የወጣቱን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደ ሀገር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢኖሩም shaqa abuurka dhalinyarada iyo guud ahaan xaqiijinta ka faa'iideysiga dhaqaalaha ee dhalinyarada dal ahaan shaqooyin la qabtay inkastoo ay jiraan howlaha sidii loo sii adkeyn lahaa waa maxay kaalinta mas'uuliyiinta dawladda iyo dhalinyarada u taala ገዢዎች የበለጸጉበት ስም ብቻ የትግራይ ህዝብ ያተረፈ በትግራይ ህዝብ የሚነግዱ እንዳሉ አሁንም ደግሞ ይባስ ብለው ስልጣናቸውን ለማቆየት በማሰብ kuwa xukunka hayay oo ku barwaaqoobeen oo magaca kaliya u faa'iideeyay shacabka Tigray oo magaca shacabka Tigray ku ganacsanayaan iyadoo ay jiraan ayaa haddana waxaabay ugu sii dareen ayagoo doonaya in xukunkooda uu sii jiro ayaa waxay dhufeys ka dhigteen shacabka Tigray oo ay doonayaan inay dab colaadeed ku shidaan si dhibaatada haysata shacabka Tigray looga dulqaada maxaa dawladda u qorshaysan Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed oo ka jawaabayay su'aalaha ay dhalinyarada weydiiyeen ayaa waxa uu yiri ሶስት የጎደሉባት ነገሮች አሉ አንድነት በአንድነት ውስጥ ደግሞ ፍቅር መከባበር አብሮ መሆን እሱም መመለስ አለብን በመናናቅ በጥላቻ ሀገር ማደግ አይችልም ሁለተኛ የተሰጠን አስደማሚ ሀብት አለ ኢትዮጵያ ነዳጅም አላት ወርቅም የሌላት ማዕድን የለም ኢትዮጵያ saddex shay oo ka dhiman ayaa jira midnimada dhexdeedana waxa ku jira jacayl isxushmeyn iyo wadajir taas waa inaan soo celinaa in la isiyasa iyo in la isnaca dalku ma hormari kara tan labaadna waxaan haysanaa hanti aad u ballaaran oo naloogu deeqay Itoobiya waxay leedahay shidaal iyo dahab ma jirto macdan aanan Itoobiya yaalin haddii aan midnimo kula soo baxno inaan tuugsanno iska daaye waxaan noqonaynaa kuwa gargaarka bixiya tan saddexaadna shuuciyadda waan akhrinay hanti wadaagana waan akhrinay ilbaxnimada waa in eebalayasa sheekada dhahaysa intaan iska dhaafna muslim iyo kiristaanba annagoo ka baqayna una hoggaansamayna eebe haddii aan ruuxda noocaas ah ku noolaana Itoobiya sarreynteedii waan soo celin karnaa fikirka dhahaya waa inaad aamini kartaan ፈተናችን ብዙ ነው ፈተናችን ባያልቅም ባይበገሪነት ግን መቆም ችለናል ተፈተን ማለት ወደቅን ማለት አይደለም ተገፋን ማለት ወደቅን ማለት አይደለም እየተገፋን imtixaanadeena way badan yihiin imtixaankeena inkastoo uusan dhamaanin waxaa noo suurta gashay inaan taagannahay annagoo aan guul darraysanin innala imtixaama micnaheeda maaha inaan dhacnay innala riixana micnaheeda maaha inaan dhacnay iyadoo nala riixaya oo nala imtixaamaya maadaama aan taagnayn annagoo aan guul darraysanin inta aan taagnaanta dhaafna oo aan hore u soconno waa inay dhalinyarada ku shaqeeyaan qodobadii aan hore u soo sheegnay law enforcement agencies እንዳላችሁት መከላከያ የደህንነት ተቋማት መጠናከር አለባቸው እነዚህ ካልተጠናከሩ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች በቀላሉ ሊያፈርሱን ይችላሉ በሚል hay'adaha nabad sugidda sida militariga iyo hay'adaha nabadgelyada waa in la adkeeyaa haddii aan la adkaynin xoogaga raba inay Itoobiya burburiyaan si fudud ayay ku burburin karaan maadaama aan isdhahnay iyadoo dhibaatooyinkan aadka u badan lagu dhex jira ayaa waxaan isku daynay inaan dhisno hay'adaha nabadgelyada dhammaan shacabka Itoobiya ma arkin hay'adaha nabadgelyada annaga waxaan leenahay waa la dhisay waana la dhisayaa laakiin dadka ma arkaan idinka waxaad tihiin muuqaalka Itoobiya waxaad ka imaadeen dhammaan deegaanada dalka hay'adaha nabadgelyada ayagoo u eg Itoobiya una qalma inay nabadgelyada Itoobiya ilaaliyaan qaab noocaas ah ugu yaraan ma loo aas-aasay mise looma aasaasin መሰረት ተጥሏል ተጣለም እንዳያችሁ ተጥሏል መከላከያም ይሁን ደህንነት ተቋማት ኢትዮጵያዊ መስሎ እንዲገነባ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት sida aad aragteen waa loo aas-aasay military ha noqdo ama hay'adaha kale ee nabadgelyada in loo dhisa qaab u eg Itoobiya sababta loogu baahday waa in haddii aanan sidaas la yeelin ay dhacayso inaan qalad kala samayno taasoo ceeb noo horseedaysa በእናንተ ነገ ላይ በነጋችሁ ላይ ለሚቆሙ ሰዎች በእጅ አትበሉ አትፍቀዱላቸው የራሳቸውን
የራሳቸውን ትናንትና ባልባሌ መንገድ አባክነው idinka waqtigiina berrito maalintiina kuwa idinka hor istaagaya ha ka yeelina waqtigoodii shalay intay ku qasaariyeen waxaan loo baahneen ayay haddana doonayaan inay idinka faramaroojiyaan waqtigiina berrito ha ka yeelina hadda kadib gudaha Itoobiya qofka inuu mas'uulka noqdo ay tahay waa dhalinyarada laakiin kii shalay khasaaray waxa qoro hadduu doonayo waqtigiisii wuu dhammaystay hadda waxa u bannaan oo keliya inuu wax qoro oo uu macallin noqdo waqtigan la joogay xaadirka waxa iska leh idinka